Ma aaminsan tahay in jacaylku uu yahay wax la xakameyn karo? Mase aaminsan tahay in ay jiraan habab haddii aad raacdo ama ficillo haddii aad samayso si degdeg ah u sababi kara in qof aan horay kuu jeclayn jacayl kuu qaado? Sidoo kale ma aaminsan tahay in aadan qof jacayl ku abuuri karin? Haddii aad dhammaysato muuqaalkan, waxaan hubaa in aad jawaab u heli doontid dhammaan su'aalahan. Dad badan ayaa aaminsan in aanay qofna jacayl ku abuuri karin haddii aanu qofkaasi jeclayn. Inta badan dadku waxa ay jacaylku u haystaan in uu yahay shay si dabiici ah u dhaca, isla markaana aan lahayn wax qawaaniin ah oo lagu xukumo. Balse khubarada ku xeel dheer cilmu nafsiga ayaa aaminsan in jacaylku aanu ahayn wax iska dhaca, isla markaana uu leeyahay sharciyo lagu xukumo ama lagu maamulo. Haddii aad fahanto qawaaniinta uu leeyahay jacaylka, waxaa hubaal ah in aad kordhinaysid fursadahaaga aad qof jacayl ugu abuuri karto. Muuqaalkan waxaan kugu soo gudbinayaa 8 qodob oo haddii aad samayso si degdeg ah kugu caawin kara in aad qof jacayl ugu abuurto. 1. Si fiican u daryeel muuqaalkaaga. Muuqaalkaagu waa shayga koowaad ee door firfircoon ka qaadan kara in aad qof soo jiidato ama uuba qofku jacayl kuu qaado. Sida aad u daryeesho muuqaalkaaga iyo caafimaadkaaga waa shayga dadku ay arki karaan keliya. Sidaas darteed, waa inaad waqti siisaa ka warhaynta iyo daryeelka naftaada, taasi oo keenayso in aad qofka soo jiidato. Badso meersashada, samee jimicsiga, cun cuntooyin isku dheelitiran, hana ka baqin in aad samayso wax kasta oo keeni kara in aad qof soo jiidato. 2. Noqo qof naxariis leh. Marka aad doonayso in aad qof soo jiidato, waxaa lagama maarmaan ah in aad noqoto qof naxariis leh, isla markaana ula dhaqan dadka sida aad jeceshahay in lagula dhaqmo. Haddii aad doonayso in aad dadka ku xushmeeyaan kuna qadariyaan, waa inaad dadku ula dhaqantaa sida adiga aad jeceshahay in lagula dhaqmo. Inta badan dadku waxay jecel yihiin qofka dhaqanka wanaagsan leh, isla markaana dadku u naxariista. 3. Eeg wejiga qofka. Waqtiga aad wada joogtaan qofka, waxaa muhiim ah in aad si toos ah u eegto wejiga qofka, gaar ahaan indhihiisa. Cilmi baaris ay samaysay jaamacadda Harvard ee dalka Mareykanka ayaa waxaa lagu ogaaday in dadka sida aadka ah isku jecel ay is eegaan 75% waqtigooda wada sheekaysiga, halka si dadka caadiga ah ee ay wada sheekaysanaya ay is eegaan 30% waqtigooda ka mid ah. Sidaas darteed, qofka 75% waqtiga aad wada joogtaan. Taasi waxa ay awood kuu siin kartaa in aad qiyaanto qofka maskaxdiisa. Oo sidee loo qiyaami karaa qof maskaxdiisa? Maskaxdu waxa ay og tahay qofkii ugu dambeeyay ee qofi eega muddo sida u dheer, waxayna u turjuntaa qofka inuu qofkaasi u jeclaa. Waxayna soo saartaa in ay iyadana jeceshahay qofkaasi si la mid ah. Waxayna sii daysaa hormoonka loo yaqaano PEA, kaasi oo ka mid ah hormoonada maskaxda sii dayso iyo fitamiinada ay neerfayaashu sii daayaan marka ay ugu horreyso ee jecel qofi ku dhaca. 4. Noqo qof dareenkiisa qarsada. Inta badan ee aad noqoto qof aan la qiyaasi karin, isla markaana aan la fahmi karin, waxay sababi kartaa in qofku inta badan kaa fikiro. Inta badan ee qofku kaa fikiro waa inta uu qofku ku jeclaan karo. 5. Badi fursadaha uu qofku kuga arki karo. Inta qofku uu ku arki karo waa inta qofku uu ku xasuusto. Haddii uu qofku muddo dheer ku arkin, taasi waxa ay keenaysaa in qofku ku iloobo. Cilmi baaris la sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday in lamaanaha isguursada ay yihiin kuwa inta badan is arka. 6. Badanaa dhool caddee haddii aad gabar tahay. Raggu waxay jecel yihiin dumarka firfircoon oo inta badan dhool caddaynaya marka lala barbar dhigo kuwa kale. Dhool caddee haddii aad rag tahay in yar. Daraasado badan oo la sameeyay ayaa hoosta ka xariiqay in dumarku ay jecel yihiin ragga adag ee maqoslayaasha ah. 8. Samee waqti cayiman oo qofku aad wacdo maalin kasta. Samayso waqti gooni ah oo aad wacdo qofka maalintii, kadibna si kadis ah u jooji dhammaan wicista. Marka aad qofku si kadis ah uga joojiso wicista, wuxuu dareemaa qofku murugo iyo fikir ku aadan adiga. Taasina waxa ay keenaysaa in qofku uu ku jeclaado oo uu si toos ah kugu soo xirmo. Digniin: fadlan si qaldan ha u isticmaalin xogtan. Waxaad u isticmaashaa kaliya marka uu jacaylku dhabka yahay. Hana ku fikirin in aad qof ku tijaabiso.
waayo ogow qofku inuu leeyahay dareen isla markaana aanay sax ahayn in aad qof dareenkiisa aad dhaawacdo. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka.